بسم الله الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan khiyaarta hawada iga daawatay ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay odhadahan oo kale iyo hadal lamidaba aad ka daawataan page-kan muuqaalkan soo socda ee booyina hadduu idmo intuu soconayo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan gaalkacayo labadeeda qaybood gaar ahaan ciidanka danab ee Puntland ay taageerto iyo BSF oo uga digay siciidani inuu colaad sokeeye oo kala dhex dhigo ciidamada ka watirsan Puntland intaan ku soo gudbin macluumaadkaas oo faahfaahsan fadlan muuqaalkan leeg saar oo share garay oo u geeyid u baahan inay macluumaadkan iyo khilaafkan ka taagan qalkacayo wax ka ogaadaan aynu ku bilownay saaxiibayaasad muuqaalka hordhiciisa aad ku maqlideen ciidamada gaarka u tababaran ee commandoska danab ee Puntland ayaa waxa saxaafad ay soo saareen ayaa digniin adag u diray madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani taas oo ku aadan xaaladda ka sii cakiran ee Puntland iyo dhaqaaqyada dagaal ee halkaasi laga dareemayo ciidamada uu hogaamiyo sidoo kale General Jimcaale Takar ayaa isla markaa iyaguna ay taageerto dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa garab istaag buuxa iyaguna u muujiyay ciidamada BSF oo dhawaan daraawiishta Puntland kula dagaalamay gobolkaasi bari BSF waxay door muhiim ah ka soo qaadatay amniga Puntland sanado badan waana ciidamo reer Puntland ah ayaa lagu yiri wasaqaafadeedka ku qornaa waraaqda wasaqaafadeedka ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay ciidanka danab iyaguna waxay sheegeen oo ku eedeeyeen siciidani inuu dagaal sokeeye ka horinayo gudaha Puntland isla markaana oo isku adeegsanayo ciidamo ka tirsan isla maamulkiisa hogaamiye siciidani wuxuu horinayaa baa la yiri colaad sokeeye waxaana markii afaraad dagaalo noocan oo kala ay ka dhacayaan gudaha Puntland ciidamada Puntland ayuuna isku adeegsanaya ayaa la yiri ayaa ka amar qaata isaga ayaa lagu yiri wasaqaafadeedka ka soo baxay taliskaas sidoo kale taliska ayaa wuxuu sheegay in aysan jirin cid Puntland ku soo duushay isla markaana khilaafka uu u dhaxeeyo dadka reer Puntland oo ciidamo kali tarisnimada siciidani iyo boobka ay qoyskiisu wadaan sida lagu cadeeyay bayaanka halkaasi ka soo baxay daawadayaal waxa kale oo lagu sii sheegay ma jirtaa la yiri cid Puntland ku soo duushay oo dibadda ah ma jirto khilaafka waa mid salka ku haya baa la yiri khilaafka siyaasadeed u dhaxeeya reer Puntland waxaana sidoo kale lagu sii sheegay isku dayga oo hogaamiyaha talisnimada ku caanbaxay baa la yiri boobka qoyskiisa siciidani ayaa lagu yiri bayaanka haddana mar kale waxa kale oo la sii raaciyay inta wuxuu weerar ku yahay baa la yiri cid kasta oo isaga ka aragti duwan wuxuuna rabaa in Puntland uu ka dhigo meel ay ka shaqeeyo talisnimada ayaa lagu yiri waxaanan soo jeedinaynaa baa la yiri in laga hortago daadinta dhiiga askar reer Puntland iyo colaad dhexmarta la yiri qaybaha ciidamada reer Puntland ayaa haddana bayaanka lagu sii sheegay dhanka kale ciidamada danab ayaa ugu dambeyn shaaca ka qaaday in mas'uuliyadda bilaabashada dagaal iyo colaad sokeeye oo ka dhan ah gudaha Puntland oo qaadi doono mas'uuliyadii ka dhalata madaxweynaha maamulkaas ayaa lagu yiri mudane Siciid Cabdullaahi Dani waa sida warka u dhigan dhan kale waraaqdan ayaa sidoo kale waxa ku qornaa xilligaasi xasaasiga ah isla markaana Puntland ay wajahayso baa la yiri dhaqdhaqaaq ciidan ayaa lagu yiri oo ka jira deegaanada kadib markii la sheegay dawladda dhexe iyadana ay abaabul ka bilowday gudaha maamulkaasi Puntland oo halka waxa jira iyagana baa la leeyahay ciidamada dawladda ka amar qaata oo halkaasi lagu abuuray BSF-na saldhigeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada Boosaaso siciidani markay imka wuxuu doonayaa colaadii uu qardho iyo Boosaaso ka soo waday inuu ka dhex dhaliyo dadka marasta ah ee ku nool gaalkacayo waa qaybta Puntland ee qaybta ay maamulaan galmudug taasina waxa la sheegay inay tahay mid aan suurtagal ahayn bal waxyaalihii dambe ka soo cusbana saaxibi Allah kala qaboojiye ayaanu leenahay muuqaalada dambe ayaad ku daawan doontaa fadlan muuqaalkan leega noo saar oo noo soo share garay adiga oo mahsan nabad